halkani waa janalka Mahuraan Media Center fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeyso aad janalkan soo booqato daawadayaal sida hordhacaad ku daawateen waa fanaanka Nimcan Hilaac kaasoo muddooyinkii u dambeeyay heesta baraha bulshada waxaas dad badan ay su'aalo isweydiinayaan maadaama baraha bulshada ay ku bateen muuqaalada photoshopka hadaba tan sidee run ku noqon karaysaa muuqaalka haddii aan fasiro waa Nimcan Hilaac iyo blue make up oo markaasi la sheegay in xiriir markaa ay ka dhaxeeyo hadaba blue make up waa qofma waa nin raga kaasoo baraha bulshada dhexdooda ka qirtay in uu noqday transgenderka ama waxa la yiraahdo qaniiska ama markaa nin inta naag isku bedelay oo kale ayuu sheegtay blue make up hadaba lama ogeyn tan iyo sanadahan oo idil in isaga iyo Nimcan Hilaac xiriir uu ka dhaxeeyay laakiin muuqaal uu soo dhoobay oo uu rabo sharafta fanaankaasi in uu kaga ciyaaro ayuu soo galiyay maalmo dhaweyd baraha bulshada kaasoo ku sheegayo in ay isla baashaaleen oo uu yahay Nimcan Hilaac nin kamid ah qaniisiinta haatan ku soo kordhay baraha bulshada aadka u isticmaalaya oo isagu igu horeey waxaana uu sawirka ama muuqaalka uu muujinaya Nimcan Hilaac oo dhuuqaya waliba dhagta ka dhuuqaya blue make up arintaasi waxay ka naxisay taageerayaal aad u fara badan fanaanka oo soo jawaabay wuxuu sheegay in arintaasi aysan waxba ka jirin oo ay tahay wax la soo dhoobay Nimcan Hilaacna aan wada ognaay in uu yahay nin xaas leh reer leh taasna ay markaa ka suuroobin dhawaana markaa gaaray wadanka Mareykanka hadaba baraha bulshada oo sii waalanaysa waa waxaan rumaysan kareynin markaa arintan sida aad u aragto qeybaha hoose ee committee-ga maadaama inagu bahda Mahuraan hadaan nahnay aan fikir ka qaadanay oo in ay tahay wax la soo dhoobay manala qabtaa mise waad naga ra'yi duwan tahay qeybaha hoose ee committee-ga nagula wadaag si share garay oo gaarsii saaxiibadaada mahadsanid aad baad u mahadsantahay daawade